wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland oo kaashanaysa hay'adda World Vision ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka furay shaybaarkii saddexaad ee Puntland ku baarayso caabuqa coronavirus. Daafurka maanta ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Cabdinaasir Yuusuf Xaaji oo wehelinayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdirasaaq Xirsi Xasan oo shalay safar shaqo ku tagay magaalada Gaalkacyo. Shaybaarka maanta laga daafuray magaalada Gaalkacyo ayaa noqonaya kii saddexaad oo loogu baari doono coronavirus xilli wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ay horey laba shaybaar magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ugu fulisay. Shaybaarkan ayaa loogu talagalay in lagu baaro dadka degan gobolka Mudug iyo deegaanada ku dhow. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Dr. Cabdirasaaq iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka Cabdinaasir oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka shaybaarka ayaa hoosta ka xariiqay in shaybaarkan loogu talagalay sidii looga jawaabi lahaa baahiyaha dadka deegaanka ku nool ayna ugu fududaan lahayd in dhaqso ay helaan jawaabo dadka isaga shakiyay cudurka coronavirus. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ayaa sidoo kale ugu mahadceliyay hay'adda World Vision in ay kala qayb qaadatay helitaanka shaybaarkan. Wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ayaa culays ka saartay tan iyo markii xanuunka safmarka coronavirus uu soo gaaray Soomaaliya sidii loola tacaali lahaa bulshada Puntland. Helitaanka shaybaar lagu baaro xanuunka coronavirus oo saameyn badan ku haya ama dhibaato badan ku haya caalamka. Puntland ayaa horey waxa ay u sheegtay in deegaanadeeda laga helay dad hor leh oo uu soo ritay cudurka coronavirus. Deegaanada Puntland gaar ahaan magaalooyinka Gaalkacyo, Garowe iyo Boosaaso ayaa ah goobaha laga soo wariyay in dad ku sugan laga helay cudurka coronavirus ee deegaanada maamulkaasi Puntland.